intaad waday howlaha golaha gabdhaha dhaqaatiirta Soomaaliyeed ma jiraan wax caqabado oo aad la kulantay ama gabdhihii kula shaqeynaya la kulmeen mahadsanid abaayo way jirtaa dabcan caqabado badan oo kala kulmayso waqtiyada ku jirto shaqada dabcan wax walba markaa fiiriso waxay leedahay caqabad sida si awgeeda caqabado dhowr ah oo markaasi aad kala kulmi karta arkaysaa caqabada ugu horeysa oo noqon karta ragga oo badanaa ku dhahayaan meel ay rag ka maqan yihiin ma lahan intifaac ma lahan meel ay rag ka maqan yihiin hor muu soconaysiin rag kusoo dara camal laakiin anaga ujeedka ugu talagalna oo ah keliya inaan gabdhaha halkaas ku midaysiino raggana saa u sheegnayba kuma jiraan haddan diyaar uma nihi inuu rag wax yar xitaa ka qabto waayo wax walba u baahannahay waxaa jecelnahay inaa gabdhaha ku dhiirigelino marka caqabad kaloo kugu weyn waxaa arki kartaa dad dhan oo ku wada jira golaha mid ugu weyn aan arkay waxay tahay in labada gabdhood ay kusoo kala dacwoonayaan tana kusoo dacwoonaysa blaysaan ay dhahday tana kusoo dacwoonaysa blaysaan ay dhahday markii aad fiiriso labadoodana waa dad wada sheekeysanaya oo wada hadlaya oo isku qoslaya maaha dad kale xanaaqsan adi marka ma samayn kartid ciyow inaa labadooda isku keenta dhahda labadiina waa iska soo kala dacwooteynaya yes waa kala soo dacwooteynaya meel kale jooga camal ma dhihi karto waayo waa dad isku faraxsan dadka waxaa la isku qanciyaa waqtigay kale xanaaqsan yihiin aa la isku keenaa okay danta waxay kuu kalifay adoodan qafna la hadlin inaa xaliso adhaado hebel hebel miyaha anaa la hadlay mardam mugsoo gaaraysa shaqadaada wado hebel hebel anaa la hadlay mugsoo gaaraysa shaqadaada wado inaa dhahdo iyo danta kuu kalifee caqabado dhowr ah way jiraan xaqiiq laakiin mar walba waxaan isku daynaa qaabka aan kaga bixi karno inaan samaysano aan kaga gudubno caqabadaha faado markii la yiraahdo gabdhaha meel iskugu keenaa ama lasoo aruurinaa oo golaha laga sameynaa way ay dhib badan tahay waan ognahay shaqada ku jirtiin waa mid aad u dhib badan hase yeeshee idinku ma jiraan sharciyo idiin degsan oo haddaad dhibaato la kulantiin ama dhexdiina ha ahaato ama shacabkii aad adigu ka dhalateen ama aad kasoo jeedeen ba ahaato aad ku xalinaysiin okay aada umahadsan tahay way jiraan sharciyo horta waxaan adduunka shaqayn laga shaqeeya waa sharci waxaan lagu shaqayn karinna waa sharci la-aan hadda madaxdeena sare sharci ayaa inoo degsan example golaha gabdhaha madaxda sare waxay kulmaan bishiiba hal mar halkaasi mar ay kulmaan waxaa jira sharci waqtiga la imaanayo waa 9:00 barka waxaad haystaa 10 daqiiqo waa adi fariiq u ah hadaa hartid hotelka soo xadir 9 saac bar 10 daqiiqo waxaa cabaysid cab laakiin hadday noqoto 9:40 hoolka shirarka waxaa ka bilaaban doona shirka qafna looma joojinayo haddii aad albaabka soo maraysid xitaa okay 9:41 daqiiqo hadday noqoto waa soo galaysaa waa fariisanaysaa shirkiga ka warqabaysaa waa qaadanaysaa meetingka iyo wixii cusub halkaasi halaha wax ku baxay oo qarash ah adiga ayaa bixinaya waa sharci inoo degsan qof kasta waxay danta kugu qasbay inay 9 saac imaado oo xitaa sometime waxaa la isku gaadaa yaa soo daahi doono daqiiqada yar la isku gaadaa yaa soo daahi doono qofkaas intuu soo daaho hadda guriga soo tagta xitaa qadaa dalbane waa qadeynay waxaa isnimada ka dhex dhalanaysa gabdhaha yacni macnaha si wax loo qabsado sida wax loo qabsado oo kaliya ayagana ka tahay waa midaas ay gabdhaha sameyn karaan sharciyo kale waxaa jira oo WhatsApp-ka kale lagu wada jiraa waa la wada mashquulsan yahay waxaa dhici karta WhatsApp-kaas lagu wada jiro in markaa wax soo dhigto kulligood wada arkaan haddana laba ka mid ay kusoo jawaabto inta kale hadday soo jawaabi weyso waqtiga lasoo dhigay waqtigiis kale waayo waxaa haystaa 24 hours 24 hours waxaad kusoo jawaabi weyso kusoo jawaabaysaa maalin waxaad ku ganaaxan tahay $5 oo lacaga akoonka ku shubaysaa waa caqabadooyin aad iyo aad u adag waxaa sidoo kale ka mid ah in gabadhii gudan weyso shaqadeeda aynoo xilka gudoomiye ayaan hayaa gudoomiyinimadeeda haddii aan gudan waayo oo aan kasoo bixi waayo shaqadeeda waxaan gebi ahaan dhigi doonaa xilka qof walbana xilka uu hayo haddii uu shaqadiisii kasoo qaban waayo ama uu wax qaban waayo si direct ah xilka lagu qaadayaa sharciyadaas ayaan leenahay oo dhanka golaha u degsan dhanka kale waxaa jira sharciyo oo aan ka leenahay dhanka shacabka sida hadda ka dhawaajisay oo ka mid ah haddii shacabka caqabad idinkala kulmato sida loo xalinaa waxaa jira professoro siiyo golaha gabdhaha tababarkaasay siiyaan waxay ka caawiyaan qaabka qofka u sameyn karna oo la macaamili karna caqabada noogu imaado
qaabka ugu horeeyo beejka marka la soo geliyo qoraalo dad baa dhahaya qaar ka mid ah qoraalada way qaldamayaan sidee u xallin kartiin ma ku xanaaqaysaan dadkaas waa maya waa ognahay inay wax qaldamayaan qof walba wax wuu qaldaa laakiin meesha naga qaldan adiga naga sax qofkaas hadaa ku dhiiragelino still wuxuu adiga ku maleynaa inaad adiga la shaqayso beri wuxuu ku leeyahay meel hebelaa qaldane soo fiiri si adiga ayuu markaasi kuu soo dirayaa laakiin still markaa hore ugu celisa jawaabtoo ah wixii qaldan maxaa kaa galay markaa dhahdo kale waxaa laga yaabaa inuu sheeri gareeyo oo waxyaabihii xumaanta ahaa oo dadkii la wadaago laakiin marka adiga dhahdo naga raali noqo bil-aadinaana wax waa qaldi karnaa waxaan qaladna adiga noo sax qofkaas wuxuu siinaa kalsooni dhammaan bulshada anaga kalsooni ayaan ka qabnaa kalsooniya nagu qabtaa waana jecelnahay sida ayaga noo jecel yihiin siday wax walba nala wadaagaana waan kaga mahad celinaynaa caqabadaha sidaas ayaa loo xaliyaa sharciyadana sidaas ayaa inoo degsan oo aynu ku meel marinaa dhanka golaha ha ahaato dhanka anaka madaxdeena sare ha ahaato dhanka shacabka anaka kasoo baxnayba ha ahaataba